ninka haysta dawladda hoose ee Hargeysa waa nin aad iyo aad u wanaagsan oo ina tusay waxaynan hore u arki jirin oo inagu yiri wadada waxa lagu dhisay cashuurta la qaaday ee deeq laguma dhisin amaahna laguma dhisin may qaadaa dhigin mujtamaceenu saddexda kelmadood ee ninkan inuu amiin yahay oo uu ilaaliyay mujtamaca cashuurtooda oo uu ka rumeeyay inuu wax ugu qabto oo uu istaahil yahay inuu u noqdo mid ay ku daydaan walaalahina kale mas'uuliyiinta ama darajaha la ahaadaan oo joogan gobolada kale ama xafiisyada dawladda mustawahay doonaan baa ka ahaadaan waxa ka muuqata inuu ka run sheegay dhaartii uu maray waxa ka muuqata inuu ka run sheegay amaanadii inuu dhibnay waxa ka muuqata inuu yahay shakhsiyad inaga ogolaanaysa in aynu waxa qalad uu sameeyo aynu ku saxno salaada ka hor waxa uu ka shaqeynayay bibsiga inta aan la eedaamin isaga iyo tiimkiisu oo aan doonaya halkan inaan ka xuso inaan mujaahid ahaa oo magaciisa la yaaruuf oo aan inta faraha badan ku arko goob kasta oo laga shaqeynayaba oo aan uga jeedo in ay ku daydaan kuwa kale oo ay ogsoonaadaan in ay jiraan mujtamac u haya wanaag iyo kalgacal waxay mujtamacooda u qabanayaan ninkeena haddaynaan wanaajin dhulkaynu gelaynaa isna dhulku gelayaa keena xunna haddaynu sano u soo qaadno dhulku inala gelayaa waanu ina baabiinayaa sidaa la ashrigeed waxa inagu waajiba in aynu la xisaabtanno cidda aynu u eegmanay in ay noo shaqeeyaan oo marka uu wanaag sameeyana aynu isku barbar taagno adiga oo aanu eegayn fulaan iyo cilaan iyo isku reer baanu nahay iyo isku deegaan baanu nahay iyo waxbuu isiiyey xidid baanu nahay tol baanu nahay adigu aan intaan midna eegin waxaad tidhaahdaa waxaad samaysay wax wanaagsan jasaakallah khayr hadduu xakiskeeda sameeyana war ka daayo ilaahay ka yaab ninka akhlaaqdani waa qofka dulqaadka leh ee marka wax xun la yidhaahdo ka dulqaata ee ku jawaabo waxa wax ka wanaagsan nin baa jira aanan doonayn in aan xuseen magaciisa oo halkan inala jooga sababta oo ma banaana inaad qofka wajigiisa aad ka amaanto laakiin ninkaasi ilaa iyo imika wuxuu u socdaa si aad iyo aad u wanaagsan horena waxaan ugu tuhmayay in uu lahaa shakhsiyad aad iyo aad u wanaagsan waxaanaan kula talinayaa inuu halkaa ka sii wado sano uga sii qaado isaga oo akhlaaqda uu leeyahay ku ogahay sii kordhinaya oo sii labalaabaya walaalahayo aynu is-indhabuuxino oo keenna xun aan soo qabanno oo ka wanaagsani ha soo qabto si aynu u noqonno mujtamac akhlaaq leh